kulankan maanta Muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeesteen dibadbaxyada ay mar kale iclaamiyeen mucaaradka Soomaaliya nabadoono waxgarad salaadiin duubabka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulanka qayb ka ahaa waxaana dhammaan dhaqankii madasha ka hadal jeediyay ay ka mideysnaayeen diidmada dibadbaxyadaasi waxay ugu baaqeen shacabka Muqdisho in ay ka baaqsadaan banaanbaxyadaasi isla markaasina xilligan aan loo baahnayn in dalka la geliyo qalqal amni waxay ugu baaqeen mucaaradka Soomaaliya in ay ka baaqsadaan banaanbaxyadaasi sidoo kale odayaashii dhaqanka ee kulanka qaybta ka ahaa ayaa soo hadal qaaday arrimaha la xiriira dhanka doorashooyinka waxayna dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in la dardargeliyo howlaha dhanka doorashooyinka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo wada dhan yahay sidoo kale odayaashii dhaqanka ee goobta ka hadlay ayaa waxa ay beesha caalamka uga mahad celiyeen dadaalada xilligan ay ku bixinayso in dalkan doorasho ay ka dhacdo nin siyaasi waxa ku filan waxa Soomaalidu ku maamaadaan nin oo malbiyahan hooba deeqla nin siyaasi asaga waxa ku filan in kursigan ku fariiso wax kale oo qancinaya waana iyo wacdi iyo diin wax qancinaya ma jiro anigu waxaan la hadlayaa marka shacabka reer Muqdisho dagaalkii Caydiid iyo Mareykanku kaligiin buu ahaa Soomaali ma gaarin idinku ku baabay dagaalkii maxaakiimta iyo Itoobiya idinkii baa ku baabay hadduu maanta ka dhaca xamarna afgooyadan ma gaarayo idinka baa ku qaxayo ku baabay hantidiina ku burburaysa cudurkan koofiga ah Ilaahay keenayna Allah inaga dulqaado waa dambigeena asaga si gaar ah uga ducayn doonaa waxa weeye marka anigu shacabkan la hadlayo waxa la shacabka mudaharaadka diin mansab iyo magac iyo muuqaal iyo darajo ha ku raadinina sidaas waxa ku raadaan si sharaf leh oo karaamo leh iyo sidii Ilaahay indiisiya ku raadiye aad bay shacabku u dhibsanayaan xitaa haday jiraan kuwa waxa idinku waafaqsan wallahi oo billahi oo talaahi wala dhibsanayaan naga daay bifadlakum wa ihsanakum ma ila aflagaadaynina ma idin la dagaalayna naga daaye waxaan ognahay madaxda musharaxiintu caruurahoodii inay dabada uga yimaadeen waxaan ognahay jaamacada inay dhiganayaan nabad ku dhiganayaan waxaan ognahay iskoolada inay dhiganayaan nabad inay ku dhiganayaan waxaan ognahay caafimaad firiya inay caruurtood in badan haystaan waxaan ognahay inay nabad uga yimaadeen caruurahoodii meel ay degan yihiin waxaa nasiib darro adukoo dalkan u dhashay ku dhaqmay madax u noqday in maanta gaal oo idin leeyahay war dalkiina ha baabi'ina oo dalkiina ha duminina ee dowladnimadiina qaata oo dowladnimadii ogolaada waa nasiib darro walaalayaal waxaan idin leeyahay shalay waxaad ku hesheen doorasho laydin doortay dhiig kuma daadan nin walba adukan kamida nin waxa u ahaayay mudaharaad hubaysan oo baabuur ay ilaalinaysa teknikaahu idinkuma jirin waxaan idinka codsanaynaa dadka aad ka dhalateen gurga dumay adaga iska leh ilmaha wiilasha dhimanaya adaa iska leh waxa baaba'ayo adaa iska leh walaalayaal waxaan ka inka baryaynaa oo hawiye inka barya inaad u turtaan gabagabadii kulanka ayaa madasha waxaa laga aqriyay war-saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa oo ay soo saareen odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye ee maanta kulanka iskugu yimid odayaasha dhaqanka Hawiye waxay ka xun yihiin rabshadihii ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay baaqi musharaxiinta taas oo ahayd nasiib darro aan loo baahnayn waqtigan odayaasha Hawiye waxay ku baaqayaan in la joojiyo dhammaan ficilada iyo hadallada lagu khalkhalgelin karo bulshada caasimadda ee Muqdisho 3 odayaasha Hawiye waxay cadeynayaan in aanan raali ka ahayn dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya deganaanshiyaha iyo caafimaadka dadka reer Muqdisho sida banaanbaxyo rabshadooyin iyo wixii la mid ah 4 odayaasha Hawiye waxay ka xun yihiin hadallada gafka ku ah dadka reer Muqdisho ee ka soo yeeray
madaxweynaha Puntland. xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle TV muqdisho. Premier Wallet waa application